بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم وكيلا. ما شاء الله. ولا له قال عوضة هدايا إذن سوق قرية أمرينا عوضنا كسوق جلا مقي حيوان كان عصب ومن عصبة مرهور على فوري لكن سيمبر وحن كرسونا أنا أقول كي كسوق جلا مركا عوض وحن جعلها حيوانka cusub inaad soo gashiin oo ay igala socotiin aad sheerka ku ugu roonaatiin sidii dadka ay ku soo bartaan oo la qabsado insha Allah hadduu Ilaahay yiraaho waa idin sugayaa soo dhawaaw Axmed Cabdiraxmaan Cabdi Latiif oo soo dhaweynaa walaalkayga soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah waxaan rabaa inaa hadda ka bacdi igala qabsatiin ciwaankan cusub hadduu Ilaahay yiraaho Axmed oo sheer garay soo gal ee sheer garay insha Allah cabdi oo salaam adin yarkii soo dhawaaw meeshaan igala socdo sheer garay sida isku gaarsiiyaan ummadda waa ciwaan cusub oo aan wili la qabsanin laakiin waa la qabsanaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraaho soo dhawaada insha Allah وإذن سو دبينا ولا ليه خالقة أحمد مو سو دواو هل الشير قريب سيدا أمدك الوقارت هل الشير قريب Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه بيرتا هسه ما كسعنيني عوضة meeshaan waxaan rabaa inaa igu baratiin barooba u soo fadhiistay walaalahey qaaliga asxaan sameey hal sheer gareeyo hal isgaarsiiyo haduu ilaahay yiraaho ma sha Allah waxaan jeclaa lahaa inaad sheer gareysiin oo maxay aheeday ciwaanka ina la qabsatiin waayo muhiim waaye waa ciwaan mar hore la furay aan rabno hadda inaan dhaqan gelino muqi waaye magaciisa muqi ayaa la yiraahaa hadda ka bacdi waxaan jeclaa inaan inta niga soo fadhiisto arimaha cawada aan ka hadli doono waxa waaye arimo xoogo isku khas ahaan ka hadleynaa wixii dhacay isbuucyadan xoogo badayni waa ka hadleynaa waayo hadalkeeda kula jooji kara maha wili waa qoyan yahay dhibaatadiina wili way taagan tahay iyadoo dhibaatadii badda ay taagan tahay haddana maamul goboleed yadii mid lamid ay iska kacsan yihiin macnahay u kacsan yihiin lama fahmin hadallo badan oo isfoot iyo maxay aheeday ku dhaga hadal oo socdaana jiraan walaalahayga siiba waxaan u hayaa jareer weynaan ii sheegaya anaga dad wadani ahaanahay wadankooda jecel ciidooda jecel haduu ilaahay ku roon yahay cid naga wadanisan inay adduunyo jirto uma muleynaa marka qofka haduu dhulkiisa ka amaan helo oo dadkiisa ka amaan helo oo diriskiisa ka amaan helo xooladadowna ka amaan helo dhulkiisana dhibaato u geysan oo beecna gelinin waxaan u muleynaa qofkaasi qofka wadanisan inay adduunyo jirto ma u muleynaay iyadoo saas tahay dadka qaarkood hadaladooda qash uu yahay markay hadlayaan markaasay waxay ku waashteen hadalka la dhahay jareer cadawgeena waa hal maanta hadday Ethiopia nagu soo duusha cadawgeena waay hadday nagu soo duulaan ii sheeg Kenya nagu soo duulaan cadawgeena waa ka simagnahay mushkan waa sanweeya kan waa san yar yahay shalay markuu kugu soo duulay oo dagaalaadka badan Ethiopia ay sameynayeen amba gobolada Soomaaliya kamid ee dadka ku gowracayeen ma dhehaynin adiga san yarkan ma dhehaynin inta sanka yar le ma dhehaynin adoonkan ma dhehaynin jareerkan inkastoo jareerka aan macnihiisa aan u kasaayo madowgo dhan inay jareer wada yihiin waayo jareerka lagu sheegayo timaha mahan midabka hataa waa yahay hadiiba qofka mar ay madowdahay cadaanka waxay u yaqaanaan neger macnaheeduna waxa waaye jareer afrikaan waaye lagu leeyahay qofkan afrikaan macnaheeduna waxay tahay jareer marka magacaan idinka aasuubsateen oo qatarka oo haliska oo dadka koomaha u diraayo maskaxiin dadka u garaacayo aan rabaa dadka qaarkooda oo walaalahayga ee saaxiibadeyda oo igu raacsan arimaha aan wado iyo ololaha aqoomidan la dulmiyay aan u wado in fahansiiyaan dadkan jaahiliinta oo in alfabeetada oo anaga nagu afbarteen labalabada socotay in la fahansiiyo yani magacaan marow baxay anaga noo bixiseen jareertan aawadiin hadda waqti xaadirkan maadaama isku baahanahay magac horta la isku dulmiyo maahan magac la isku garaaca maahan dagaalkiis maxay ahayd siyaad bare oo noo hogaaminayo amxaarada la dagaalayna magacoodu wuxuu ahaa amxaarta iyo xabashada waa isku raacsaneen marka maadaama wadankan aan isla leenahay dhibaatada hadda taagan dhibaato dadkiina ay suubiyeen ay yihiin aniga dadkayga ma sameynin adiga dad walaal oo wax isku darsadaanahay oo wiil iyo waalid dadkayga intay bixeen dawladadeed oo diriska intay u tageen tuugsi uma aadin ka bacdina hadaa rabtid waxaasan ku siinayo dhulkaas intaas iiga gad lama dhihin beecna ma soo gelinin ma fahanteen inkastoo maanta ay ixigaan dadka aniga ay igu riixaysiin magacooduna ay igu dulminaysiin oo ku wacaysiin jareerta wiilaa ku waashtay gabaraa ku waalatay habaraa ku waalatay biryahan dhan lifekan fiirsad waxaan maqlooyaa jareerka heesaa lasoo saaray sanka dhuudhi waa hadaladii anaga oo nagu caajirteen waay aw sanka dhuudhi okay adiga waxaa isleedahay iyada islaantan maxaa daara anaka iyada maba haysan aniga ima haysatiin waa ogahay ninkaa haysatiin jareer waay sax laakiin asiga jareer iskuma yaqaanee afrikaankaas afrikaanu isku yaqaanaa wuxuuna degaa kenyaatiga xumo uraayo afrikaanka xumo uraayo iska dheha daarto maadaama aad afrikaannimada aaba rabinba oo lagu kari laayahay ileen jareeraan ahay afrikaanaan ahay seem waaye waxay ku kala duwiyiin male laakiin adiga yani intaas sankaas qofkaas buuran iyo timahaas adag bisaa fiirinaysaa wax kaleenta ma rabtid waxaad sumcad ka dhigata adduunka inaad ugu qurux badan tahay
waxaad aqli ka dhigatay in maxay ahayd ugu nasabsan tahay inaad ugu laan dheeraysan tahay inaad adduunyo dhanba aad gacanta ay kugu jirto oo jannadan lagugu bishaariyey okay dhulkan iyo dalkan iyo dadkan waa naga dhaxeeyaan waa isguursanaa waxba been ha isku sheegin 100 gabdhooda ninka iimaan laheena waa gooyaa wuxuu dhahaa jarir hadaa guursatay bis waay ha sheeganinoo bilgeedina ahaa jirta hadda ma bilaabanin ilaa iyo waqtigii waalidiintayna isguursanayeen ilaa iyo aboota ii aniga jaleec aboota ii ma fahantay ani habartay ma dhalin laakiin habartay islaan la gabdho la dhashteen dhashay isku aaba yihiin afkoogay habartay dhalay ayaa guursaday waa qabnaa dumaashiyaalay noo yihiin ilmahaygiyaa dhalay waa la isku lafaaqan yahay waxa waaye maraqan caba fuudkan waa ka fafanaya adiga naftirkaaga ma ogid yani hadduusan jareer ku dhali lahaynna waa cadaan lahayd sidaan hore idinku sheeg waa idinku celinaa arrintaas ma ka daalaya barka inaa ifahantiinaa rabaa in lees fahmo muqadas waaye fiidiyaha sheergareeyo maadaama ciwaankan cusub yahay walaalahayga waa idin baryaa hala sheergareeyo ummadda ha gaaro ha laygu barto ciwaankaygana waa kasoo geli doonaa kanna laakiin waxaan jeclahay inaan u bato weliba kan waxaan jeclahay intii beelaha jareer weyne wiilal iyo gabdho maamooyin ninkii markaasi rabo inuu live soo galo maadaama uu naga dhaxeeyo muqoy geedka la dhahayo taariikhda uu leeyahay waa ogtihiin muqoy waxa waaye macnaheeda geedka weynaa waay oo xididada badnaa muqoy waa waxaa la dhahaa aabihii hooyadii jareerta waay wabigana aabihii jareerta waay bukuraartana anagaa nahay bukuraarta wabi muqoygoo ka baxaa saasaa lagu fasira anoo yar marka geedkaas wuxuu leeyahay tilmaam aad iyo aad u weyn iyo taariikh aad iyo aad u weyn oo Afrika dhan uu ku yaalaa Afrika oo dhanne isku mid ay u isticmaalaan waa saldhigii waa maxkamadii waa suuqna waa laga dhigtaa muqoyga hoostiisa maxkamad yani markay odayaasha wax isku soo qalaafaan waa soo fadhiistaan waa ku tashtaan waxbaa meel la isla dhigaa amuur markii la qabo sidoo kale muqoyga hoostiisa markay tahay xaflad beledkoo dhan u taalo oo sida dabshidkoo kale muqoygaasaa lagu kulmaa waa bunta di riferimento dhahaa talyaani waa meeshii jareer iskugu imaanayeen markay wax qabaan wax alla waxay rabaan ha ahaato marka geedkan ani kaligeyga kama soo hadlaayo nin alla ninkii rabay inuu soo harsado welcome aan dhahayna waa soo dhaweynayna walaalahayga qaaliga noona soo la jareer hatta haddii dadka jaleecda oo walaalahayga anaga ololaha aan wadno iyo jarta aan raadinayno nala rabaan jecel inay nagala shaqeeyaan sidaan cajaladayaashii hore niigu soo sheegay qofka walaalkay amba qofka saaxiibkay amba qofka guurka waalidiinteen iyo walaalahay oo jaleecda oo naga dhaxeeyo hadday rabaan inay igala shaqeeyaan sida hadda wiilkan codka ummadoo kale codka shacbiga la dhihi jiro codka ummadda la yiraaha wuxuu ka shaqeeyaa ummadoo dhan inta islaan ummadda nabi maxamed oo ka hadlaa wuxuu fariin u diraa dadka dulmaayo wuxuu u danaaniyaa haqa dadka dulman u danaaniyaa maasha Allah nin alla ninkii rabo inuu ciwaankan igala soo qayb galo oo ka soo hadlo aftax uu furan yahay wax problem ma jiro waa ka soo gali karaa habeenkiisa waa meeshii aan projectkeeni iyo damaheeni iyo arimaheeni intuu ilaahay guul naga siinay aan ka wadi lahayn waa intii dulman maasha Allah marka walaalahey qaaliga waxaan jeclahay hadallo yar yar oo kooban horta inaan idin dhageysiyo yaa waay isugu wax yar dhali halo assalaamu calaykum hay mimaate okay maasha Allah hay hadda ku soo degayaan haddaan deg dhahaas hay isugu wax yar hala raali ahaado yaa gelin karaa caafimaadka dahabka ayaan u doolar dhaawacin sahay waa dadnimadeeha ku doorsan soo qura waxa diiday kugu yiri adado sigay dadkaagu doorso ku dadaal samirkeen ruuxda beecaddan iyo dadka beerta unhaw hadal dabacsan iyo loo deganaa qorshaha fulid damiirkaaga noole nolol waa dabeecada kasba dooqa kugu weyn daritana mid roon iyo xero duurka gubanimo qofku waa ku digashay isla weyni daadaa istusnimaha duurgelid ha ku daalin kibirkii deelqaafka sheekada
damac iyo haniya loo garashada qof doorbida wadii ku xirashiya sunayaal istaba taxa oo dariiqa leexshiya duruufaha nolosha jira ka dabaalan kara oo idin ogasho kara dadka qiimo kugu jecel ka guddoorsan qolo dadku waa walaalka iyo kaan la daris tahay degdegina saabsaab dadnimada barbaarba dawdana barshaande digashada ka reebreeb deelqaadku waa gune والحالي كان أنا بينك سبدي ماركينو كاسانو أركتين أوكي marka waa maqasheen gabayga ma gabeen aad iyo aad u qurux badan way aadan u jeclahay ayaan dhexdaas een waxa ay soo gaartay story yar waxiga cabad mushakil waay isku jir waay waxaan rabaa inaan ka hadlaa idin dhahay marka hore isbuucaaniiti waxaan kala soo kulmay umadan dad badan oo xanaaqsan oo sida anaga u xanaaqsanahay dabcan waa la xanaaqaya markii lagu yiraahdo dhulkaagi hooyo yaa nin adiga diriskaaga ahaa shalay oo kaalmo u wacatay kaalmana maaha lacag la siinay dhaqaalay ku helayeen dhulkeen inay joogaan maasha Allah saas ay tahay waa walaalsaheeni waa weheshaneeni Amazon balaay iyo maxay ahayd ii sheeg Kenyaatiga iyo waa walaalaheena waa diriskeena balaayan ka daba dhaheena markii dambana waxa waaye haddii adduunkaaga adiga daayacdid waa laga faa'iideysanaa waxa la isku dayay in laga faa'iideysto in la dhibaateeyo in maxay ahayd haddaan hadalnane waa maqasheen naag faceyna gabar faceyna waxay ku hadlaysay dhehaysa maxay ahayd gabal yaroo dhulkeena cidna uma ogolni waaba dagaaltameynaa dagaalay ku baaqday sida hadalkeeda aa maqlayseen ilaa ay haddana arrinta maxkamaday taagan tahay kolley waa la wada socotiin Facebook idinkaas waa idin furiyaa taas ma idin fasiraayo mana ku noqonayo laakiin aniga waxaan rabaa inaan abeel u diro waana u diro dadkan walaalahayga markay xanaaqaan wajiga sariigta iska tiraayo wajigooda tinaa ka soo baxda calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu mari cadeysoo dhawaaw wajigooda tinaa ka soo baxda markay xanaaqaan wax iskuma reebtaan walaalihii horta waxaan idin sheegaa ereyga la dhahayo jareer waxaan cawada idin sheegaa magac manoo noqdo absolutely mana qaadanayno waayaa idin dhahaa jareer magac la dhahayo magac noo ma noqdo dadkan magacyadan ayagaa baxsadeen laan dheerkan ay sheegayeen ayagaa baxsadeen heblow waxaas muxuu ahaa asiga bina heblow bina haashi iyo bina yoonis iyo bina waxaas ikaa baxsadeen abtiriska ay wataan dhanba abtiriska iyo macal taariikhda waa la sameeyey taariikhay sameeyeen taariikhda ay sameynayaan Soomaaliya waxaa deganaya ku dhaheen niman geelleey geelaha ugu qurxan adduunka laga heli jiray berquesto oo carabtina waxaa ka dhaxay jiray business ka dhaxay jiray Soomaaliya oo dhan waxay ku soo koobantay inay lahaayeen dad geelleey horta waxa waaye qof nool lama dhaxli karo adduunka anaga waan ogtahay inaan Soomaaliya u dhalanay aan wiligeena joogi jirno aan gumaysigana soo gaarnay video ayaantaan idin tusaa jiro wareegay waqti gumaysiga dadka meeshaas buuxay dadka suufka jiidaay dadka maxay warshada sokorta ka shaqeynay dadka badanaan waxay u badnaayeen dadkan oo walaalaheena askartoodii oo dabagaab ugu jiro oo mursaliina la shaqeynayo oo waardiya camal u shaqeynayo oo marka ogaarsiga la aadayna raacayo baabuurtan labadaan iyo anaga oo beerihii ka shaqeynayna gumaysiga saasaa loo kala maray gumaysiga naftirkiisaaba kala kululaabo anaka keena woo kululaa gumaysi aad u kulul aad u fool xun u ahaa barkee adirtuula lugta katiina ku xirnaa jirtay al dhahay sida sheeka aan ku maqlay lugta ayaa katiina ku xirnaa jirtay shuceeb aan soo qabanay lugta ayaa katiina ku xirnaa jirtay al dhahay marka wadan dhibaatadaas u soo martay oo lagu soo cabiidsaday abu sixigi dhibaato ku soo mareen hadda ina adiga laga midibta kooro magacaan jirin lagu bixiyo adna qaabishid oo maanta shaydaan kasta oo juuf dheer oo ku dhaho jareerta aniga magacaan ani maan ahaan waxaan ku tali lahaa cawada magacaan filinkiisa eeyaa cunay magacaan waa wasaqoobay magacaan waxaa loo adeegsanayaa wixii tinjilec oo tinjareer oona san weyn oo Afrika degaan dhana loo adeegsanayaa wixii adiga lagugu adeegsanayna tilmaam walaaleed ma ahan waa dulmi
tilmaan xagga degnadiyaa waay gabarta jaleecda heedi ana ma badahaybo qas ma dhahay haday badatan waxaan dhahaa gabarti habar yaa waay gabar hibley magaceed kan iyo waayna habar gidir waay mise daarood waay mise maxay sheeg abgaal waay mise raxaween waay anaga saasa isticmaalna daa ooji imboy waxaan jeclaa anagana inaan saas noola isticmaalo jariir ma jirto haddaan anaga ka hor imaano anaga u ololeyno magacaan wuu baxaa magaca la magac arabtina aan isku raacno aan soo saarno miiska laakiin magac jariir la dhahay ma jiro magac jariirka waxaan ku nacan ku sheegaa saana loo isticmaalaa ina aragtiina rabaa aad baan islaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa afayeenka ummadda Soomaaliyeed afayeenka Puntland taleebaqta qunusade sariye guud waxaan rabaa inaan halkaan inuu gubeedku dhalay Uhuru Kenyatta oo jareerka dhalay iyo inankii haddaan baadan shirika qaadayni haddaan kaa qaadi weyno annagoo Soomaali ah yaa waad arki doontaa tarsana waxaan leeyahay tarsanow dhulkaagaad imaanaysaa waa soo dhaweynayaa nin abgaala baa tahay nin Soomaaliyeed baa tahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho lagu soo dhaweynayaa ma garan Kenya shalay xuduudda baadan kaga qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baadan ka qaaday markii mushaarku naga soo daahan anoo xoogga dalka Soomaaliyeed Kenyaanka intaan tukanaan xabad ku qabanaan dhigi jirnay keena laga baad markaas lacag siin jireen ma gar kuwa baad ka qaadi jirnaa maanta anaga isu kay dhirinay oo wax laga qabay karama Uhuru Kenyatta jareer dhalay baa qabiilka waa kukuy adoo kukuya ba anaga iga baxneenena waraaq ku sheega ma way soo keen dhamaatay aniga hadda dhaqso degdeg staafkii hadda qaadka ka jooji magacan qayrin kan waxa leeyahay qayrin qaadka ku joojiya laga daayo farmaajo iyo khayr waxa leeyahay farmaajo talaabada aqaad horta birid Soomaaliya laga qayli maayo wax ana diyaarada ay imaan jidii iska jooji caawa waay reemidu way qalin soo dirka dhib baqo ma gartay jooji qaad horta waa mid badda ma hooyada waay Uhuru Kenyatta badda sidaa ma hooyada waay argacali waa isu imaanayna kukuyo dhalay jareerka marka ari as wax buu haystay Axmed Muwa wuxuu yiri ninkan waa nin xanuunsan waa la yaqaana waana la yaqaana okay nin xanuunsan haduu yahay toban cod oo kan ahaan ku haya laakiin maraba inaan waqtiga ku dhumehe ma fahanteen amba xanuunsanana amba hafiyobaada aniga cabada waxaa go'aankayga ee magac jareer inaan inta uga tagaayo magacii maanta arabtiin ileen dadkaba wax kasta iska baxsadeen daarood habiye dir doobire tan tii kaleenta wixii aa keenaysiin keena laakiin magacan wixii waal iyo wixii fiyooba ay ku digrihayaan dad anaga hataa garbasaarkeena hataa ay gaarin ay ku digrinayaan ha uu ahaado magacii Afrikaanta walaalaheena u isticmaalayaan maanta ha uu ahaado dadka masaakiinta oo u muleeyo dadka inay Afrikaan caadi yihiin oo dad madow ay yihiin ee diris yihiin hadda maanta cabada aan maba ogibo 4 video ahaya laakiin maraba waqtigeyga inaan ku qasaariyo arimo kale oo ka weynaan wataa aan rabaa inaan idin sheego ninkan kaligiis ra'ligan ma qabay ra'ligan naagta qabta abootada qabta Puntland waa ninka meesha uu joogo oo habeenko wiil igal soo hadlay dhahay maxay ahayd dadkiina Puntland buuxaan boqortooyadii waa sidoo afkiisa uu nugul yahay arag magac jareerka marka aniga maana go'aan waxaan gaaray famil heer mukuyo hataa aan baxsano laakiin magacaan jareer umadan aan u dhaafno walaalahayga ma dhibaan magacay baxsadeen magacay sameysteen hadda waayo ewl maxal dhahay midga kan ma dhibaan kunturwaay kii kale waay habeen dhaxdaas waxaa maqlay inay magac kaleento ay sameysteen magacaas isku raacay heer maxamed waxaas la dhahay magacooday ku tageen magacaan shaydaan kasto oo timo xun shaydaan kasto oo jeega alwaax leh oo san kuusan shaydaamad kasto oo waxay tahay la ogeyn in alfabeet ay ku rafanayaan aniga maba ii qalmaba aan taaganahay tinta madaxeeda le ma leegu bixino maba leegu bixinaayo jareer ninkii igu cun hadda bacd doodan ka qaba hadda idin sheegaya dood weynaanba ka qababa barkee magac hadda si sharaf leh uu isticmaalaysiin
saan ma loogu taataagsan lahayn huro kenyatina laguma caay lahayn addoonka hataa markaad tiraahin I don't care anaaba habeen hore niila dhahayay addoomada jareerka okay jareerka ma ahan ina ani igu aqoonsanaysin amba aqoonsi igu bixiseen ficila igu sameyseen iyo dulmi iyo midibta koor aan magacan jareer igu bixiseen anigana hadda noola volyo meeshii kasoo bixiseen geliya idinka ni taala fotoda habartiin hataa geliya ma kasteen marka wiilaan soo qabtay fotoda habartiin la gala magacan dadka waa soo qabanaa isoo codsada axmed mo isoo codsada waa idin soo qabanaa baa ka hadlayna doodan cabada meeshaan u fadhiyaaba taas eeba ani magac jareer ma rabi caw ma rabi maalin ma rabi haddaa ii diidiinna inaad magacaan aawad wadatii rabtiin oo lamgoodlin ay nigu kor rafaadsato tunisia amba marookan tankeeyaas oo yareysaha tinta hataa waa la abuuraya had tintana waa soo abuuraha ahla wasaal wa marxab dhiigayga haasta haddaa rabtiin laakiin magac asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا وعلى في الحمد لله سو دواء جاركي ما شاء الله أنا قاعد بأوفي عنها والله مركا محاد كان لي ساويل كوالنا حنوصلني ما كان لي سامعني ويل كان كل سماها شيء كذا ماشي صعطة وحايبة هديق مقع أنا نلا بحث جرو أول ده جرر وينه ورك مقع عن مقع أنا مقلة جرر وينه وحوها مقع لسكت المامو برت الماميذ وها ما فهمت hadda waxaan arkayaa magacii inuu xuduudka gudbay bartilmaameedna ka tagay waxaan ku ogaaday madowga kale oo banaanka jooga hataa waxa ku wacdin jareer marka aniga marabi noloshayda oo dhan aniga ciyaalkayga iyo waxa aniga soo aslamabo in timahooda qabiil looga dhiga marabi taas aabadeeda jareer waxay haystaa 50 iyo 2 qabiilood waaye 32 qabiil waxaan rabaa nin kasta qabiilkiisa sida habiye loogu waco daaroodna loogu waco amba abgaal habar gidir saas inaan hadda ka bacdi nololiis geliyo saasaan Soomaaliya ka codsanayaa runta way walaalay hotoro annagu haddaan maadaama nahay hotoro dadka Afrikaan baa isku danahay gabigeena soo xagaratay ma oo jirka madow maanta haddaan maanta Yurub nimaadno jirka madow Afrikaan baa noo leeyahay wax kale aan dhimaayo ama cabrato kale oo tagno waxaan ugu leeyihiin madow baatay ku leeyihiin ka walaal inaad anagoo Soomaaliya inaan isku caayno jareer baad tahay iyo dadka kale madowga aadana jareer marka Soomaali iidan baa heerka isgaarsiisay maantana Kenya waxay doonayso inay ku samaysato maanta Soomaaliyada heerka isgaarsiisay marka waxaan leeyahay ummadda xadgudubta kuwa xadgudubka kuwada xaga daayaan xadgudubka صح marka saasaan kula talinayaa marka dadka kale beenta ka sheegay magacooda caayada ka dhigay macni waxaan arki jiray hadda markii aniga waxa ruuxan ka yimid meel leeyahay jigjiga Ethiopia laakiin hadda kuma nooli waan ku noolaan jiray bari laakiin hadda kuma ka jigjiga markaan joogi jirnay waxaan oran jirnay oromada marka waan ku caan jirnay oromka waxaan dhihi jirnay oromka waa orom baan dhihi jirnay soo xagaratay ma ninka oranka maadaama hadaad ku tiraahdo oran baa tahay wax xanaaqaya macni ama uu ku dilay inuu ku dilo wax lama wax yar raalaha wiilkeyga wax yar هذا إيمان هاي ويلكيجا وإيمانا marka oromadii markii sida aan ku oran jirnay macnaheedu aan ku dhihi jirnay oromka haduu doono waxanaaqi jira haduu doono diiwaan diri jireen marka ama anaga kaga badnaan jijigo marka waa diri jirnay ka 2016kii markaan ka soo baxay dabadeed waxaan maqlay oromadii baa Soomaalidu soo duushay hadda oromkii oromo ku faanaya macni faan bay ka dhigteen ka waxaan leeyahay odar Soomaali qof cid ka badan ma jirto cid ka laandheeraysan ma jirto laandheero waxa weeyaan ninka laga waayo maalinta yawmal aakhiro ninka laga waayo jannada Ilaahay jannada Rabbiga mar raacnaasha Ilaahay laga waayo ninkaas laangaaba ama ninkaas lagu tilmaami karaa jareer ama fool xumo soo waxa garatay ma ka walaalay waxba yaan loo bixin dadka nin xanuunsanayo qalbiga ka jirin baa dadka ku caayay jareer baa tahay ama waa tima adagta ama sidaas aad tahay
ka may wiilkan waa wiil aniga caayma u muday inuu ku fahmay aniga beelaha jirir weyn aan ka dhashtay beelweynta beelaha jirir weyn aan ka dhashtaan dhahay faana u muday laakiin markaan arkay habar markay hadashay ee dhaysi jareer oo la haysto huro Kenyatta oo aniga shaqo igu lahayn haduu isku diinna manihi isku dalna manihi isku dareenna manihi cadawgeyga waay marka aniga qof cadow aan u haysto oo lay hoos geynayo yani oo moodada aniga magacii ani lay bixiyay asiga lagu wacooy taas waxay ka dhigan tahay aniga asiga isku bareeja isku miisaan saaranahay marka inaan ku danaaniyo oo dhulkayna isla dhacsano mise inaan adiga iska ka ilaaliyo labadaas midaan raaci lahaayaan fahmi lahaay marka Soomaali cabada ii sheegayaan magacaas jareer hadda aad jecel igu bixisay amba maxay ahayd tintayda hataa igu eemaashay ilmahan la dhalaayo waxaan Soomaali way iska mahmaah badan tahay qofa ilaa waxa la leeyahay ilaygi qofa lugla waxa la leeyahay lugaygi qofa gacan la asaasoo kale naanaysa loo bixina aniga naanays walaalkay ii bixiya u haysta laakiin maadaama ogaado magac in loo isticmaalo wasaqnimo ma barabaan taaganay gaarkeyga waa otwal iska bedeli karaa laakiin sidaasay tahay dadka Soomaalida sidaasay tahay way badan yihiin annaga oo maanta jijiye ka nimid laakiin ana asal ahaanteed waxaan ka yimid Muqdisho wallahi dadka Soomaalida qaar baa nagu dhaho jareer reer xamarka oo dhan waxay nagu dhahan ama dadka xamarka yimaada reer Puntland taas waxay nagu raadeen jareer baatiin marka waxa weey reer Puntland weey umaleynaya wiilkaas ka walaalay waa kulli waa in la iskaga dul qaataa macnaheedu nin walba haduu jareer ama ahaado ama haduu ahaado jireec ama haduu ahaado qoladu ha ahaade Soomaaliin baa la wadahay Soomaha marka waxaan leenahay dadka xadgudub ku soo xadgudbay xadgudubka ka dayan هذا وما حسنت يركي غير الله كسيو إن شاء الله ضد كلام رادنا يا سوق قبنينا الله صعب برنامجك السلام عليكم وما قشين سوق عطد وإذا سوق قبنا مجعان وإذا سو هذه مجعان ضمير كست يدون فارق فرو كست أو عمبار أنا قف أفريقيا أهلك أفريقيا دجنا هاي قرنيالا دجنا هاي السنة معهن بقول سنة معها لو بقول سنة ما شم قرنيالا دجنا قرنيال ما فهمتين إن ويلي جايين ما اللي وش كاين حتى إن قحكوا إيمان مقدشة إيه حتى قحكوا إيمان أنا قال وين كسو جلين وحن ربنا كجذهين بديهين وكنا قنين مرك أنا وحن قبا ما أنا هن عوض أنتوا صف لستو حالي ورم بقى هرد أنا كهرد وايش كذا وحن لنا أنا وحن لهنا إنترنا لقى هيستا أنا وحن لقى هيستا وحن أقولاني إن لا يسوع وحن أقولاني ضد مذو ولا لهنا إيه وكنتن إلى بق نودن أدون كدجان مجا اللي قتيم بري أو إيه جريرك يأدونك يعني علشان وإكنا هي عمل إنه اللي قتيم بري إن تيم بردي إنه اللي قلت وحين نجا صارت الصومالي ماضي ما أنت عبد وحن عالم أسوه كسدواك سدا أو قرح بدنا عارف عالم كان أنا إسكالي مدحيس نين رجع لي جدي قدوميه SYL أها ثقافة الدين إن ثقافة الدين إن شيخ ويا ويلكو شيخ ويس دير ويلكو أبوه أها عالم كان أصل السجايس واحد إنه سوق هذا مالته إنه سوق هذا اللي جربه إثيوبيا لقصو عربدي تيزن ويسوق دماتي إن كلا دات سنة ما أنت كلا دات سنة هين وكلا دات سنين وما بيسكبر هينين بو نين كلا أنت إمادة زوبة لدهاي أو أفمايجي إن كدمي دت كان إن محيد إن أفماي إن لقرة هذا أفمحاتيرج إن لقرة أي على قتالير أو فيرمي إن برتيت أسيق أو وطو عم إن حزبي أسيق أو وطو أيو نجدي حزبي جان أو شبني كراستي ما أنت دت كان رن أو ولا له هنا أو شبيلة هوسة كراستو واحد دت كجلع أو فرديان هرت تاسوها شكل ماشي كسب بلعبة شكل دير واحد مربي إن قالوا أنا جرير أنا كدودو يا عبده ما قاعد جرير أي عبد دت كان إيك إن إيش كيني إسماعيلي هذا أنت سارين محكمة دي لندن مثل جو واحد مثل جو كانوا نيذرلاند أنا محكمة النيذرلاند واتجينا وحن واتجينا مرة بق قبر الصومالية دان أهاي قبر مسلم أهان أهاي قبيلة ليه هاي سيدا أو هبيه أنت قبيلة ليه هاي اسكوا عن قر أهان هبيه كيهين دارات قبيلة اسكوا عن قر أهان دارات كيهين در قبيلة اسكوا عن قر أهان دري كيهين أنا وحاربا إن قبيل اسكوا عنه قر أهان أنك أهانو مقي مويو cambuulo wixii ana ka rabno markaas aan ku gaarnay inaan ka noqono waxaan dadkan ay cambaareen ee wasaqeen dhiiqada ku shubeeno
boosaneerka ay dhexgeliyeen aanay mabanigu raacsan cabada soo qabsada waa idin soo qabana wixii ka qabtiin ra'ligaas ii sheega magac jareer waa ila uray waan iga soo haaday barkee ebel sharafaa u mudaay nabadaan ku qaatay qosol iyo dheel misdhehaynin hadalkaa midabta koor waaye waa lagugu socay addoonkaa iska ilaali jiray magac addoon haddii la yidhaha waa xanaaqi jiray jareer weyn noo ku farxi jiray laakiin wax lagu farxa meesha ma yaal saaxiib no Uhuru Kenyatta meeshii jareer lagu dhahay oo layla siimay waddankaa layga bixi rabaa marka ani ma yeelaaye soo qabsada مريع شير قرايه فيديو انا هالشير قرايه ولا ليه اسقاقار بركي عوانك وعسب يها اللي يقوموا حبيبتي مريم الو سلام مع انت السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ستاي ولا هذا وفعنا الحمد لله قاليه ما شاء الله soo dhawaaw warta soo dhawaaw waa ila socotaa umaleynaa barnaamijkayga cawada ما يسجل yaa waa haddana barnaamijkayga cawada waxaan kugu soo jilcinaa maryam magac jariira iga soo haaday ma rabo inaan lagu waxaan ku diidayaa magac jareer walaasheeda qaaliga video hadda aan tusay iyo videoyaal kale oo haayo habar qeylinayo dhahayo marina intii nala dhahayo adoomankan iyo maxay ahaday marka dadkan madowga iyo sidooda waxay u yaqaanaan adoon mogtahay laakiin hadalka adoonka ciyaal suuqyadooda isticmaalo markay anaga nala dagaalaan laakiin dadka muhiim oo maxaa la dhahaa oo akhyaarta ma laga yaabo inay gadaashayna ka isticmaalaan maahin horteen inay ka isticmaalaan ma laga yaabo laakiin dadkan madowga qalbi furan ay u dhahaan amba afka fahma amba yoo fahmin war adoonkii maxaa meesha fadhiyo adoonkii kan adoon waa fahanti maaho marka aan waxaan diidanahay adoonkan kenyaatiga lagu wacaayo mosambiga lagu wacaayo hadduu ilaahay kuuroon yahay sabaaxiil kii kale adiga kulli konton iyo labadan qaaradood oo madowga waxay u yaqaanaan adoon ii kale bilis okay ani soomaaliyaan ahay sinjiidaydu waa soomaali calankeyga waa kan diintayda waa ti islaamka waa kula degaa waa kula dhashtay waa kaa dhalaa waa iga dhashaa waa ii dhaxdaa aniga adiga jaleec maku dhahooye heblow jaleec waay iyo hebley jareer waay iyo mana dhex taalo markaan sankaaga iyo timahaada arko okay hadday badas waxaan ku dhaha abbaa yaa tahay hadna waxay ku jawaabay amba habar gudra aanaa maxay marina maba ku arkeen horteen ma kulmayse wad marina adduuy karayso baride وحجين قبل بعدون بقيلين جرير بقيلين وقت الرملة بسوق marka warka waa ku soo kookooba ala alcamuum magacaan jareera iga soo haadiyan taagnaa adiga warka boy waa fahmaysaa hora u sii soconayna kulligoodan jawaab kara waa jareerow dhanaan jawaab kara waa magacaana rabaa inaan habada ku cuno ani haddii habada ku cuni waayo leega diidoo lagu dhaganaadan Tunisia amba Morocco inaan tan ka soo yareysto tintaangna waxa waay Mareykanka imaad oo tin oo malaas layso suubiyo مايكل جاكسون ما استدقى مايكل جاكسون سهل بويتاس waxaan tagaa barkadii oo Djibouti amba maxayde ii sheegtay kale Soomaaliland ku taaleen galataas leen dhaxgalataas wax weyn ma tan kana xoogo kurbe asin 100 ko 200 kun oo dollar inaan raadiyo dacwadiya ilaahay miya marka ani waxaan rabaa magacaan inaan bedelno yaa igu raacsan way sheekada deedi kale adiga si wada hadalka waxaan rabaa oo magac jareer la bedelo عبد قان كادي برنامج كاغ وحويا إن مجا جرير أتترتب. ساسا نيجلا تشنويا. أنا مكو رأسني. نمبر 1. هاي. مجا جرير. إن لا تتر أنا مكو رأسني. هاي. شيء ولا بمركا دي هذا نوع يكون نقطة هذا وافي عنده أنا بدأ خبطة مركا هذا برا بولشة أكشيت أونلاين أكشيت مجا جرير.
waxaaba qabaaba waxaanba ku ahay antibiotica ku haddii tiraahid markaasayba ugu daran tahay oo lagu saarayaa haye kow midda kale waxaan kuu sheegayaa waxaa la yidhi magac iyo masiibo maalinay kuu baxaan meeshaan jareerka kaligiis le ma socdo anakaba jaleeca dhoweyna ma kasoo saa jaleec wax fiican ma amagtido ma anaka lama good la dhahnaa jaleec ma dhahno maya jareer iyo jaleec way sug ascelino haye soomaali waxaa lagu degan yahay jareer iyo jaleec haye soomaali waxaa ku degannahay jareer iyo jaleec midgaan ma jiro boong ma jiro gabooye ma jiro magac kaloo hadda la baxsada ma jiro waxaasoo dhan wax oo wax waaye oo ee cuni waaye ma jiro meeshaas waxaa lagu degan yahay jareer iyo jaleec marka jareerkuu macneeyo jareerka haddii ayagu fahmayaan u fahmaano hadday u fahmeenin macnaha si ka liiteeba u fahmooyiin jareer waxa waaye qof adag waaye adag qofka markuu adag yahayna number 1 waaye wuu fiican yahay ma garat haye qofka markuu markuu adag yahay waan kuu sheegaa dee hadalka toosan aan kuu sheegayaa ma kuu sheegaya mid oo hadda adigu waxa aa ku tid oo magac hadda oo mar hore kuu baxay inaa hadda macaarku noqotid that's not true markii aan u fasiraan ku dhahay ninkii u haasta jareer markii lagu dhaho nin adagaa lagu dhahay nin adagaa tahay nin adag aa tahay jareeraa lagu dhahay laakiin markaa aniga iraa jaleeco ma aragtaadi jaleeco intiisoo joogsadee dacdi yoo yaaya dhesa jaleeco maxaan ku ogaa oo meelahan oo aan dhoya kaas yastiin waay adi yastiinka adi asxijinin jaleeca yastiin okay magacyaha adiga hadda aad tirinoosid annaga inaan suursano anaga yani anaga nagu kal tahay anaga naftirkeena magacyo badan waan samaysan karnaa baantu aba qablaabo baantu isticmaali karnaa baantuna ma isticmaalayna ninba sanjiidoo leeyahay maxaa isticmaalayna soomaali baantu maya qabiilka ka sokow anaa kuu sheegayo hadda ogaadeena jiro anaga maxaa nahay soomaali maxaa nahay kastaas oo dhul oo meesha maxaa nahay jareer iyo jaleecaa nahay mao aw jaleec marka meeqoo qabaa hawiye iyo daarood wuxuu qabaa majeerteen mareexaan dhulbaanti ogaadeen woo haddana sii badii sidii waxa camal daangid gaduudneed oo dabka markii lama xab lagu sugo oo buux samaysa haddana waa sii bidi haddana wuxuu yidhi majeerteen heer diina ka ahay mareexaan heer diina ka ahay heer koosina ahay usaa isfidihooyo asaga waa dhexdiisa waa daas iscabtiheen adina waa iska dhigi kartaa haddii adiga dadkaaga kuu fiican yihiin ma garata صح اوكي واي معنا هويا صوبودي سوق وحير ايك وواد شيكد يدبول وحير هل دقيقه ولا شيء ياهي ددان لا عكسيه مالك سبدي dad taasba ma kugu jiro bay aan labada u shisheer gareey marka adiga baa baxdi live marka soo galeysay adoo oo diyaar soo gal adiga oo soconta soo gal عاد واكو مقلو يعني كنت 8 qof ku taagna la si hadal hal daqiiq le bis hal daqiiq waay sana dadka wax u fahmay dhinaca aniga hadda caawa waray wadaa aniga adiga marba siyaasadeena mid maba noqonayso inaan mid noqonaynin waa is ogahayba because waxyaabaha oo adiga ku hadneys ani wax ii soconay ma magacan jareerka ala bedela ani sal ugu bedela magaca jareerka waaba anaab ehbe marka fiicna hadii lagaaga soo dhaadhici maano ayaga jaleeca dhoosa mana ka qeylno jaleeca dhoosa mana ka qeylno was goona no matter laanta ama maanta oo barnaamij يعقوب واكو سلامي عبد المالك واكو سلامي اصحابك الوان سلامي محمد سيدي انا كوسو شير جري واكو سلامي احمد يرادنا رايي هذا وسو دبيي هذا waxa ugu xumaay adoo hooyada waaninayso عبد المالك انا كوسو سلامي احمد مهم الله waa maqlay sheekadaada aqliga yaraan iyo weynaan
aad baa idin salaamay baasha sheeri ha lagu qabto macnaha walaashay ani iyadu waxa waaye jareera asalnaa macaaradna waan ku ahay ani inankeen war gooyaan jeclahay oo meesha ayada wax ka tegaysa baan ninka ku dayahay وأنا أبكي أصبح إلى الدنيا أصبح إلى الحدوية هدي قيمة لا لا سومال أفكي صدق قيمة لا ياي أفكار اللي يرجع لها محي قيمة لا أفكار دك أو أقلي بدنا أملينا لكن دك أو أقلي يروي مركا ولا شيء بحكوا شيء مركا هل ما دكوا شيء جرير ماق واي ماق قبيل واي جرير marka anaga kaligaayna markii anaga kaligaayna shiidna kaligaayna aanay lix odayaanay ma fahamti صح okay soo tag makana jiro saddex umaro jiro waxa jiro maadla jiro waxa jiro shabeela jiraan meesha shan bara laga sheegoya biimaala jiro intira jiro galadiya jiro maxaa adiga sida habii daarad adiga dadkiina maxay iskaga sameeyeen waayeen ayaga iska sameeyeen marayigooda aad ku haysataa ما أنا كأقولان أنا إذا كابني لهدلو ده كامل هدلو ده كامل قلبنا بأنا كنا قصعدا عادي يعني تشيد واحد جاون يا لوسوسين يعني الودين ده كعقل جاون أو ما أنت إنه قلت الماما يعني ده نحجلنا عادي مسكح هذا كشقيسي ده كان عيدا إسبازيه عادي هو بدن تأميرتي that's why أو محاكور هذا مدحويني من أول ويس بركة marka dawladnimo loo joogsanayo ama meel laga doodayo hadaa adiga aad badantiid xibana ku soo bixayso laakiin hadii aniga jareeran ka taaganahay aad tiraadi hal jareera lagu haaya hal jareerna ma tiid may soddon iyo laba qabiil la sheegaa Maryam lama iska dhigeen fiir warkii aku galo lama iska dhigeen jalaac jareeran kala taaganahay ya haddana abi daarooda dheen adig jareer jalaac ka taaganahay jareero adig maxaa adina sida abi daarad magac uu keen sameeyay ma aabi ra'yigaagi aabi ma keensan okay habiya marka wuxuu naqdi habiya wuxuu naqdi asana farqo sameey geed muku amal habiya farqo sameey mursada ka soo baxay waxa ka soo baxay abgaala ka soo baxay waxa ka soo baxay wadlaan wacdaan habar gidir waxa ku raada hilibi انت اصلا سمي او مقعيس فيريا هاي وحاله داي هير سموك اسمه موغا لي راوي دارد ويسوكي هير سموك اسمه موغا لفا ابيسات هوسي كحريران بريغ لا اسقيبناين go'aankaas way lahaayeen hadda isku xumaadeen man go'aankaas way lahaayeen in dad kale oo strong oo la jiraan way ogaayeen waa laga shiray hawi daarooda la isku baxdo daaroodna wuxuu iska dhigay 20 farq hawiina 20 farq oo iska dhigay عادي دابا مالكم فديسا waa halkee nooga baxday way aqli 6 saac ee nooga baxday way halkaan anagana 6 shiid la aan ku kala bixi lahayn oo makana aan dhinac u bixi lahayn oo kaboolo dhinac u bixi lahayn oo maxaan ku raadayay saddex cumar reer ciise oo dhinac u kala bixi lahayn hadda isma jeclo oo shan bar dadka la gooni u bixi lahayn oo biimaan dhinac u bixi lahayn oo galad dhinac u bixi lahayn waad badatay markoosid waa badataha kor ahaan hadda Qur'aan ha ka dhahan hadee rabaan amba baantu amba jirar ha ka dhahan dib male laakiin hadan example kala ku siina so ani warka runta la sheega mana aytama hatta aydeeg run le way man bang ma aha so I don't ma absadan ma igu jirto makasi example kala ku siina marka example kala oo meel gaaban oo yar ka siina ninka jalaac waay ninka jareerkana jareer waay nin waay kan nin rag waay kan nin rag waay still هذا really strong أفكار كادويان جرير كادويان نين strong هاتاي أو نين حرك لا هاتاي you know what I'm saying ما فاهم يسافر كي okay حد ما الجابنا كاسينا مركي ده كان أو دقلي مرف أدين شقة ما سكولين دقلي مرف شقة ما سكولين ما دقلي مرف شقة ما سكولين ما شقة ما سكولها
biimaal iyo dir dir iyo biimaal maxaa u dhexeey waxa u dhexeeya mala hadda la isku sheegayo laakiin ebel dir yaabaa dir markii oo dir aad tiraadid oo kuraasna loogu daray oo laba kuraas le ay siiyeen maamulka ina wey haddaa adi isbadin weyse waa lagu kala qaybinayaa marka dirta loogu darooyo dadkaas oo biimaalkan waa la dhumi diraa loogu daray waa example kaliixaan ku siinay digil iyo mirif shaqa mu isku laha digil iyo mirif shaqa mu isku laha eelay waaye dadkaan waaye digil waaye maxaa la sameeyey صح maxaa la sameeyey waa la isku lafaaqooyaa digil iyo mirif adi waa lagu afqabanayaa hadda maxaa socdo dir iyo waxaa socdo iyo biimaal isaaqa ku imaana hadda waa isaaq dira ku imaanaya hadda waa adoo biimaale oo jareere waa saxoosaay inaad dir tahay waa saxoosaay markaatiya iska aad noqonaysaay haddaba isaaqa ku imaahay beerihii janaal isaaqa soo degaay markii adaaba uga cadso maaha adaa raalli ka noqotay صح waay okay haddaa magaca jareer adiga aad nacdid oo aad iska dhumisay adna waa dhunti haye magaca jareer haddaa iska dhumisid adi dhanaa dhuntibo jareer dadka afrikaanta oo soomaalida meesha ku jiraan dhanaa dhammaadee magaca jareer wax oo titir maayo ma aha jareer iyo jaleec waxa waaye dad badanaa ku imaahay be jareer iyo jaleec markii خلاص dada la hadlooya aan telefoon ku jiriya male jareer iyo jaleeca wadanku kuleenaa dhooysaaye dad kale ku imaanaya be jareer iyo jaleeca ku leedihiin carada dhaxal waxaa idinka dhexeeyaan nin jaleec iyo nin jareer oo dhaxalka dhexeeya oo dhulka yaa ku ogolay marina aba dad kale yaaba imaana aniga aba la ogoleen aniga aba ku idin lay geeyay nin ku kulayaan isku magacse ku noqohayna ii sheeg idagaas fahansana haye dhulkaas meeqa qabiila iskale jareer iyo jaleec haye midgaan dhanka soo tag waxa u iska riixooyin le waay okay markii qaybsamay ay imaato qaybsamay rustra haddii la raadiyo talyaaniga laga raadiyo restaurant haddii la raadiyo talyaaniga laga raadiyo dhulka jareer iyo jaleeca iskale labadaasaa dhaxalku u leh qof kaloo meesha soo gelaysa male ayaga midgaankooda ayagoo ku dhex jiraa intooda kale ayagoo ku dhex jiraa shaqa musku leeniyiin annaga eelaa nugu jirto annaga managa dhex baxsana waa qabnaa anaga dad badanaa qabnaa mafahamti marka haddii adi oo magac jareera siiba magac jareera magac jareera ciribta kasiiba haddii adi dheesid oo haddii jareer magacaas maliga dhaaf haddii laga dhaaf waayene waa isgubaaba aad taagantiid magac jareer ma tirmaayo mana la tiri karo mana tirmaayo jareer afrikaana ahay afrikaan jareera ahay waxaan ahay maxaan ku irahdaa soomaali afrikaan ahay ani magaca kale soomaali wax la keeni leewaay laakiin jareer iyo jaleec la kala nahay taas meesha kaaga baxay markii adigu ku rabo inaan ku caayo adoo ahlu salaada adoo muumina adoo weligaa caanama daadiya ah adoo weligaa waxba haleeni markaa inaan ku caayo rabo oo sankaaga ku dheeryahay oo tintaada ku jilicsan tahay oo wax weliba ay ku tahay inaan ku caayo haddaan rabo yaa